السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا aad baan idin salaamaya walaalayaal dhammaantiin soo dhawaada xalqadeena aqoon doone badanaa waa taxano aqooneed oo aan halkan idinkula sheegareeyo. taxanahan waxaan inta badan ku falanqeeyaa waxyaabaha la xiriira dhanka waxbarashada, gaar ahaan waxyaabaha ka dhexdhaca barayaasha iyo sidaas oo kale dhanka ardayda. xalqadii tan ka horeysay waxaan idinkula sheergareeyay waxyaabaha keena in baruhu helo ixtiraamka ardayga. waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan walaalaha daawaday xalqadaas, talooyinka, dhiirigelinta iyo sidaas oo kale bogaadintane ila soo wadaagay, igana dhiirigeliyay in aan xalqadaha noocaas aan aad u soo badiyo. insha allah haddii ilaah yidhaahdo waxa aan wax badan ka bedeli doonaa habkii iyo jadwalkii aan ugu talagalay muuqaalkaas ama broadcastigan. xalqadan waxaan rabaa in idinkula sheergareeyo 10 waxyaabood oo keenta in baruhu uu waayo ixtiraamka ardayga. waxyaabaha aan maanta kula sheergareynayo waxa ay inta badan keenaan in baruhu uu waayo ixtiraamkii ardayda uu ka heli jiray. saas darteeda waxaan kuu rajaynayaa haddii aad 10kan qodob ee aan maanta kula sheergareynayo aad ka dheeraato, bara ahaan aad ka fogaato, in aad heli doonto ixtiraamkii ardayga oo aadan wey doonin. laakiin mar walba oo baraha habdhaqankiisa ama baranimadiisa laga helo qodobadan aan hadda kuula sheergareyn doono qayb ka mid ah, barahaasi waxa uu khatar ugu jiraa mihnadiisa baranimada in markaasi ay dhulka ku dhacdo. mar haddii baraha mihnadiisu dhulka ay ku dhacdane, shakhsiyadiisa ayaa ku xigta. mar haddii baraha shakhsiyadiisu dhulka ay gashane, gebigiisuba halkaasi kama muuqanayo. waxaan kaa rajaynayaa in aad 10kan qodob ku dhaqmi doonto. haddii aad soo jiidatana insha allah waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka leedgarayso, asxaabtaadana aad u shisheegarayso muuqaalka. sidaas oo kalena ha hilmaaminina saaxiibayaal, hadafkeeni ahaa 10 kun inaan gaarno, inaad idinka inaga caawin karaysaan. qodobka koowaad ee keena in baruhu waayo ixtiraamka ardayga waa bisayl la'aanta baraha. baruhu marka uu shakhsiyad ahaan yahay qof aan bislayn, gebi ahaanba waxa uu waayaa ixtiraamkii ardayga. marka aan ku leeyahay marka bisaylka baraha maxaan kala jeedaa? kow, baruhu marka uu waayo aragnimo badan uusan lahayn dhanka nolosha ah, barahaasi ma bisla. baruhu marka uusan lahayn communication adag, hadduusan garanaynin ama uusan lahayn, barahaasi ma bisla. sidaasoo kale baruhu hadalladiisa iyo fikradihiisa iyo qaabka uu u fakarayo haddii aysan ahayn kuwa saameyn badan ardayga ku yeelan karta, barahaasi ma aha mid bisil. saas darteeda baruhu marka uu yahay shakhsi nolosha gebi ahaanba dhinacyo kala duwan aan ka bislayn, oo waayo arag aan ahayn, oo ardayga aan wax u soo kordhi karin, oo ardayga uusan ku dayan karin, oo ardayga aan wax u faa'iiday karin, barahaasi ixtiraamkii ardayga ma helo. laakiin marka baruhu yahay mid khibradiisu ay fuul tahay, marka baruhu yahay mid bisil, marka baruhu yahay mid ardayga wax ku kordhinaya, mid ardayga su-aalaha uu qabo uga jawaabaya, wax ku beerinaya, barahaasi ardayga uu ka dambeeya. marka waa qodobka koowaad ee aan kugu bogaadinayo si baranimadaada ay u noqota mid guulaysata. noqo qof khibrad nolosha badan u leh. qodobka labaad ee keena in baruhu waayo ixtiraamka ardayga waa in uusan aqoon badan u lahayn maadada uu dhigayo. waa mid ka mid ah factorska ugu weyn ee aan dhihi karo. maadadu waa xariga isku xirta ardayga iyo baraha.
saas darteeda marka baruhu maadada uu ardayga u dhigayo oo si fiican u yaqaano waxa ay keentaa in ardaygu uu wax badan ka faa'iido barahaas waxa ay keentaa in baraha khibradiisa maadadaas ku saabsani inay ardayga qalbiga iyo maskaxda ka gasho waxa ay keentaa in ardaygu confidence-ga macalimka ka guuxaya ee ku saabsan maadadan in markaasi uu hoggaansamo laakiin marka ardaygu uu arko baraha oo aan lahayn aqoonti ku fillayd ee maadada uu dhigayo barahaasi ixtiraamkii ardaygu weynaya marka badanaa khibradda baraha ee maadada ardaydu laba hab bay ku ogaadaan kow ardaygu inuu su-aal ku weydiiyo su-aasha ardaygu ku weydiinayo waxaa laga yaabaa inuu garanayo ama uusan u baahnayn laakiin aduu kugu tijaabinayaa bal in aad ka jawaabtid ama in aadan ka jawaabin qaabka labaad ee ardaydu barayaasha aqoontooda u tijaabiyaan waxaa weeyaan habka aad cashirka u sharxayso iyo inta aad xiisada ku jirtid sharaxaadaada ayaa la qiimeynaya ma sharaxaad qoto dheer baa ma sharaxaad normal ah baa oo dhexdhexaadaba mise waa sharaxaad kooban baruhu markuu wax sharxayo barayaashu laba qaab waa mid buugga ku eg yacni buuggaas waxaa ku qoran bisay sharxaan kadibna xiisadu saas kusoo dhammaataa nuuca labaadne waa bare buuggiina wuu sharxayaa buuggaanne wax ka dheeri ah ayuu ardayga usii sharxaya labadaas bare labaduba waajibkii way guteen laakiin midka dambe ayaa ka wanaagsan kan hore midka dambe ayaa ka saameyn badan kan hore marka haddii maadada aad dhigaysa aqoonteedu ay tahay mid gaabis ah waxyaabaha aad ku weyn karto ixtiraamka ardayda qayb ka noqon doontaa saas darteeda marka ardaydu wax ku weydiiyo isku day inaad sida u quruxda badan aad markaas uga jawaabto si markaas ardaygaasi aqoona uu kordhiso isla sidaas oo kale marka wax sharxaysidne sharaxaadaadu ha noqoto sharaxaad qiimo leh sharaxaad ardayga wax ka faa'iidayo sharaxaad ardayga ku kalifaysa maadadan ama xiisadan hadda aad soo gashay maahane tu kale macnaha in aad u soo gasho baraha wanaagsan waa baraha su'aalaha ardayda uga jawaaba baraha maadadiis khibradda u leh waa baraha sharaxaad buugga ku saabsan iyo mid kale dheeri ah labadaba bixiya waa bare markaasi haybadiisa laga dareemayo marka uu galaasi ku jiro ee wax sharxayo qodobka saddexaad ee keena in baruhu waayo ixtiraamka ardayga waa baraha oo ka adkayn galaaska aan ka adkayn maxaan kala jeedaa glass managementiga baraha ku liitaahi waxa uu keenaa in ardayda ixtiraamkii uu ka lahaa uu ka waayo baruhu markuu xiisada soo galo arday baa buuqaya mid baa mid kale wax ku sheegaya mid baa mid kale ku mashquulaya mid baan cashirka dhan la socan mid baan buugga soo kala bixinaynin mid baa jiifanaya iska hurdaya isku mid maaha marka habka uu macalimku galaaska uu u manage kareeyo waxay ka turjumaysaa shakhsiyadiisa saas darteeda dhammo managementigaadu uu wanaagsan yahay waa markastoo saameynta baranimadaadu ay sare u kaciso dhammo managementigaadu uu hooseeyo oo weak uu yahay waa markastoo haybadaadu ay hoos noqonayso saas darteeda class managementigaada 40 daqiiqo ama 30 daqiiqo ee xiisada aad ku jirtid ha noqoto mid qorshaysan min bilow ilaa dhammaad waa in aad taqaanaa xiisadaasi wixii aad qaban lahayd waa inay ku qorshaysan yihiin ardaydu aad bay u jecel yihiin macalimka xiisadiisu ay qorshaysan tahay way ka dambeeyaan macalimkaas laakiin macalim xiisada markuu soo galo iyo markuu ka baxayaba ay isku mid tahay oo ardaygu markuu macalimku ka maqan yahay iyo markuu galaas soo yana isku mid yihiin macalinkaasi haybad ma yeelanayo mararka qaar waxaa arkaysaa xiisad oo macalim ku jiro laakiin buuqa ardayda xaggaaba laga maqlaya cashir buu macalinku sharxayaa ama cashir buu qorayaa galaaskiina waa buuqaya
marka galaas soo gashidne waxaad arkaysaa macallinkii galaaska dhex taagan ama wax sharxaya ama cashar bixinaya bal adigu waxa geebad u dhaqaaqi macallin galaaskii dhex taagan oo wax sharxaya oo wax qoraya haddana loo maleeyo in galaasku macallin la'aan yahay waa waxyaabaha horti aadka wala yaabka badan ee wiiga managementiga dhanka galaaska macallinka ku saabsan waxayna keentaa inta badan in barahaasi mustaqbalka uu noqdo baro aan ku sii soconin muhiimadaas baranimada oo baranimadiisu weynaya marka galas managementigaada ha ahaado mid aad u wanaagsan bilcagsi waxaa jira barayaal markii management galaaska laga hadlayane dictatorship oo ardayga hadduu wax yar xag fiiriyo ama wax soo qaato ama qof wax weydiisto barayaal waxaa jira ardayga buushgaraya baa jira managementigii xadkii loogu talagalay buu dhaafay macnaha ma wanaagsan iyadana waayo ardayga waxay ku beertaa kalsooni xumo ardayga waxay ku beertaa cabsi waxay ku beertaa walwal marka managementiga waxaa la rabaa adigoo ardayga xaquuqdiisa aan dafiraynin adigoo ardayga buushgaraynaynin adigoo ardayga aan ciqaabaynin haddana inaad galas managementiga aad ka adag tahay inuu hoos wiig noqdo lama rabo inuu zaa'id aad u adadkaadana lama rabo qodobka afaraad ee keena baraha in ixtiraamkii ardayda uu kulaha u waayo waxay tahay la xifaaltanka baraha ee ardayga arday iyo baruhu marnaba ma xifaaltami karaan sinaba haba yaraatee waayo labadooda midna waa hogaamiye mid waa waalid midna waa la hogaamiye waa ubad waa midka ubadka ah ee la hogaaminayo qaladaadkiisa badan midka wax hogaaminayane waa inuu noqdo qof dulqaad badan marka baruhu marka uu ardayga kelimada uu leeyahay uu sii daba kacayo hadalkii uu qiimeynayo waxa ay ku kaliftaa in markaasi ardayga uu la xifaaltamo ardayga uu cuqdad u qaado ardayga uu ula macaamilo sida qof faciisa oo kale mana wanaagsana baraha mar walba waa inuu ogsoonaada ardayga aad wax barayso waa arday garaadkiisa shucuurtiisa iyo qalbigiisaba ay kobcayaan korriina ku socda sababta lagu keen maxay ahayd waa in dabeecadiisaan liidata aad isbedel ku samayso oo aad u samayso dabeecad wanaagsan marka ardaygu qalad sameeyo oo aad la xifaaltanto oo aad cadaadiso oo aad sida u dhaqmay aad u dhaqanto macnaheedu maxay tahay wixii lagu keenay ee ahayd dabeecadiisa liidatay inaad horumarin ku samayso ma aadan ku samaynin marka mar walba waxaad ogaataa ardayga garaadkiisa iyo caqligiisa hadba intii la eg yihiin ayuu ku go'aan qaataa ha la mid noqoni marka adiga marka baruhu in uu la xifaaltamo ardayda ma wanaagsana natiijo fiicanne ma dhaxal siiso baruhu waa inuu qof dulqaad badan hadallada ardayda ka soo yeerayaan wanaagsan ficilada ardayda ay ka soo yeeraya xaggooda waxaasoo dhan baruhu waa inuu dulqaataa baruhu hadduusan qof dulqaad badan bara ma noqon karo haddii wax walbo la yiraahdo ama haddii la soo fiiriyo ama haddii wax yar laga sheegaba haddii baruhu uu gubanayo oo ay ku kalifaysa ardaygaasi inuu la xifaaltamo barahaasi markaasi baro wanaagsan ma noqon karo arday kalsooni badan wanaagsanne ma soo saari karayo qodobka shanaad ee keena in baruhu waayo ixtiraamka ardayga waa kaftanka xad dhaafka baruhu inuu kaftamo way wax wanaagsan baruhu inuu ardayga la kaftamo waa wax wanaagsan waana waxyaabaha lagu dhiirigeliyo qofka baraha ah inuu markaas uu yeesho laakiin kaftanku xad buu leeyahay haddii mar walba la kaftamo haybadda macalimka hoos noqota mar walba ardayga haddii uu macalinka la kaftamo waxa ay keentaa ereyo aan wanaagsanayn in markaasi ardaygaasi ugu dambeyn qalbigiisa ay ka soo baxaan marka natiijo qurux badan ma keento kaftanka faraha badan ee baraha iyo ardayga ka dhexeeya kaftanku waa inuu xuduud leeyahay laakiin mar walba kaftanku uu bato waa mar walba haybadu ay hoos noqonayso mar walba haybadu ay noqotane
macalinka qalbi ahaan uu dhaawacmi doonaa mana ka heli doono. marka kaftan, laakiin kaftankaadu xuduud ha lahaado. waa inay jirtaa xaalad lagu kaftami karo iyo xaalad aan lagu kaftami karin. marka baruhu ugu dambeyn waxay ku kaliftaa in ardaygu u arko sida arday kale, yani wuxuu rabuu sheegayaa, wuxuu rabuu dhahayaa, suu rabuu la hadlayaa, wuxuu rabaa ixtiraamkii iyo baranimadii yani lagu yaqaanay qofka baraha ah ee ardayga laga rabay ayaa meesha ka baxaysa marka ay mar walba kaftamaan ardayga iyo macalinka. marka kaftanka aad buu u wanaagsan yahay, barahana waa lagu dhiirigeliyaa inuu ardayda la kaftamo, laakiin waa inay xuduud ay leedahay. shayga haddii xuduuddiisa uu ka baxane bilcagsi buu isku bedelaa. lixaad ee keena in baruhu waayo ixtiraamka ardayga waa isla weynida. baruhu inuu iskala weyn yahay ardayga, hadalkiisa, la fadhiisigiisa, la hadalkiisa, la istaagiisa, su-aalihiisa inuu uga jawaabo wuuba iskala weyn yahay macnaha. isla weynidaasi baraha natiijo fiicanna ma dhaxal siiso, ardaygana waxa uu macalinka ka bartaa dabeecadda liidata. marka isla weynidu ma qurux badna. mar walbo ardayga aad jastid ama aad u aragtay inuu doqon yahay ama aad u aragtay inuu fahamkiisu aad u liito, waa mar walba oo ardaygaas qalbi ahaan maskax ahaan u dhimanayo. macalinka isla weyni ma soo saaro arday kalsooni badan, ma soo saaro arday aqoontiisu aad u sareyso, ma soo saaro arday waayo araga, ma soo saaro. bilcagsi wuxuu soo saaraa arday sidiisaas oo kale la mid ah. marka ma wanaagsana baruhu inuu ardayda uu wax barayo uu iskala weyn yahay. hadduu wax ku weydiiyo, haddii uu wax kaa codsado, haddii ardaygu yani uu caawin ku weydiiso, mar walba baraha waxaa laga rabaa astaamaha wanaagsan ee qofka lagu yaqaano in asaga looga daydo, laakiin ma aha waxyaabaha liita ee aan wanaagsanayn in markaasi baruha looga daydayo ma qurux badna. waayo ardayga wax walba oo baraha uu ka dhex arko oo habdhaqana wuxuu aaminsan yahay in ay mid saxa tahay. marka maadaama ardaygu adiga uu kugu dayanayo, ha kaaga daydo wax walbo wanaagsan, laakiin waxyaabaha xun yuusan kaaga dayanin. macalin Etoobiyaan baa ardaydiisa tamaan iskugu yeeray, wuxuu yiri ardayay aad ii maqla, darajada A buu yiri ilaahay oo kaliya baa u qalma, darajada B buu yiri aniga u qalma, laakiin bin aadamku inta soo harto dhan darajada C iyo D iyo E ay galgalayaan. marka ha noqonin sida barahaas oo kale oo kibirka iyo qabka meelaha inta isla weynaaday meelaha heer darajadii labaad ee eeba ku xigtay uu isgeeyay macnaha ha noqonin. waxaa noqotaa baro wanaagsan, ixtiraamka, akhlaaqda, dabeecadda wanaagsan, isdhuldhigida, qalbi wanaaga, naxariista, yani hadal wanaaga looga daydo noqon macnaha. markaas arday wanaagsan baa soo saaraysa, adigane qalbiyan iyo maskaxiyanba waad koraysaa. marka qodobka toddobaad ee keena baruhu in ixtiraamka ardayda uu waayo waxa weeyaan ciqaabta faraha badan. ciqaabtu mar bay wax xalisaa, marna wax ma xaliso. laakiin baruhu marka mar walba uu basic ka dhigto inuu wax ciqaabo, ciqaabta faraha badan waxay dhaxal siisaa baraha in ardaydu qalbi ahaan ay ka fogaadaan. ardaydu haddii qalbi ahaan ka fogaadaan, ixtiraamkii baa meesha ku baxaya. barayaashu sidooda waa labo, mid aqoontiisa iyo shakhsiyadiisa iyo caqligiisa ku kalsoon oo markay arday isqabtaan ama ardayga waxyaabihii iyo waajibaadkii uu ka rabay markuu ardaygu kasoo bixi waayo, aqoontiisa iyo khibradiisu markaas isticmaalaa. ardayga ma ciqaabo, wuu la istaagaa, wuu la xaajoodaa, wuu dhageystaa, halkaasuu kala hadlaa, saasuu ku xaliyaa problem. nuuca labaadi ma aaminsana aqoon iyo karti iyo waxaas dhanba ma aaminsana. mar alla markuu ardaygu qalad galo, tallaabada ugu horeysa waa inuu ul ama ciqaab ardayga marsiiyo si markaasi uga xaliyo. marka ninne wuxuu aaminsan yahay marka ardayga lala xaajoonayo waxaa lagu wada xaajoon karaa wada hadal. midna wuxuu aaminsan yahay ardayga inuusan la istaagi karin, yani uu ka baqaya ama kalsoonidiisa hoos ah, yaa darteeda ciqaab wax ku xalinaya. marka ciqaabtu ma wanaagsana. ardayga mar walbo aad ciqaabtidne waa mar buu kaasi dheeraan. macalimiinta qaar baa laga xusaa, macalin baa arday garaacay, arday markuu garaacay maxay kaliftay in xubnihiisa ugu muhiimsanaa arday inay dhaawac soo gaaray, kadibna ardaygii qalin uu galo. sidaas baa markaasi ardayga u dambeysay. bare kale muxuu sameeyey, arday buu luq u dhiftay, luqta ardayga birac u jirta, maxay kaliftay ardayga markii qalin uu sameeyey. bare kale muxuu sameeyey, ardayga kelibu ku dhiftay, kelidii baa dilacday. waa waxyaabaha dhacdooyinka markaas aan goobjoogga u nahay. marka
ciqaabtu sideedaba xal maaha waliba zamankan marka la joogo ardayda ciqaab laguma xaliyo ardayga wada hadal baa lagu xaliyaa sidiisaba waa inaad fahmi kartaa marka qaladka mudan in ardayga lagu ciqaabo iyo qaladka mudan arday in lagala xajoodo labadaas waa laba qalad marka qaladku mudan yahay ciqaab marka uu qaladku uu mudan yahay in ardayga lala xajoodo la xajo aaminsana macnaha labada qalad inay kala jiri karto laakiin qalad walba hadii number 1 aad ciqaab adiga lagaga imaanayo wax qurux badan baaha macallimow qodobka sideeda ee keena baraha in ixtiraamka uu waayo waa ballan jabinta macallinka markuu ballan ardayga la galo ballantiisa haduu ka soo bixi waayo barahaasi ardaydu waxay u aqoonsanayaan inuu yahay ballan laawe saas darteeda ma ixtiraamayaan hadalkiisa iyo waxyaabaha uu dirayo iyo ballamihiisa waxaas oo dhan ballan qaad male marka hadalkaada iyo ficilkaadu weligaa iskala har inaad baratahay inta aad baratahay hadalkaada iyo ficilkaadu weligaa aysan kala harin mar walba oo aad tiraahdo shaygan waa samaynaynaa haddii ay dhacdo in aad shaygaasi aad samayn weydane cududaar macquul ah xilli hore kasii bixi si ardaydu markaas ay ku ogaadaan laakiin ha noqonin qof markuu ballan qaado ballanta arday uga baxa waayo taasi qiimaha ballanta arday aad bari lahaydna way meesha ka baxaysaa haybadii ixtiraamkii ardaydu ay ka rabeen ama ay ka ku sii rabeen meesha ka baxaysaa sidaas oo kale qodobka sagaalaad ee keena baruhu inuu waayo ixtiraamka ardayga waa cadaalad darrada ardaydu markay isqabsadaan ama dagaal dhex maro barayaashu inta badan markay wax xalinayaan aad u degdegaan marka cadaalad darrada waxa la yiraahdo ardayga aad bay u qalbi jabisaa marka aad wax xalinayso ama arday la xajoonayso mar walba waxaad noqotaa cadaalad macallin ku dhisan laakiin haddii cadaaladu aysan agtaada aysan macno kala hayn ama go'aanada aad qaadanayso ama hadallada aad ardayda aad markaas ku dhahayso markaad wax la xajoonaysid ama wax xalinayso cadaalad badalay keenta marka cadaaladda aad ugu dadaal oo arday walba xuquuqdiisa si adiga aan dafiraynin qodobka u dambeeya ee keena in baruhu waa ixtiraamka ardayga waxa weeyaan waa hadallada xunxun ee aan wanaagsan hadalka xumi nabadna waa ka fogeeyaa colaadle waxba kaaga ma taro marka baraha midku ka hadal wanaagsan yahay ardaydu way ka jecel yihiin baraha hadalka wanaagsan aqoonin baraha caayda badan baraha aflagaadada badan baraha baahdilka badan ardaydu ma jecla ixtiraamka ardayga uu waaya baraha laakiin qalbiga wanaagsan hadalka wanaagsan erey wanaagsan ku dhahaya markii ardayga soo qalad ku jira baraha ardayga dhiiri gelinaya oo hadal fiican ku dhahaya barahaas ardaydu way jecel yihiin marka baraha hadal wanaagsan mar walba waan isbara arabkaadaas iyo qalbigaada waxa wanaagaysa ka soo bixin maalin baan galas xiisa ku lahay form 3 almost 3 sano ka hor miyaa afar sano meel bixaayay marka galas marka soo galayay baan arday meel fadhiyo oo inay baan arkay marka oo tigay waxaan ku dhahay maxaa ku dhacay xiisad baan ku lahay macalinka wuxuu yiri aad buu yaacay buu dhahay macallin xiisadan ku dhex jira marka ardayda dhan baa ilaa hadda waa camiranaya macallinku muxuu ku yiri wiyo macalinka muxuu ku dhaabay madax suul oo yiri madax suul ardayda dhan baa marka wuxuu yiri ilaa xiisada macallinku muxuu baxay intuu ku jiro way caynayeen marka ardayda bal eegana qalbigiisa dhan baa gubanaya oo inay halkan fadhiya marka macallimiinta hadallada ay dhahayaan ardayda marka agtoo loo fiiriyo aad bay muhiim u tahay marka hadallo wanaagsan mar walba laga fisho mar walba hadal wanaagsan aan laga filan oo hadal xun ama hadal adag ama bahdil aad arday ku sameeysidne waxa weeye ardaygaas waliis ma korayo ixtiraamka ardaydu way ka dhimanaysaa adiguna sidaas oo kale mid wanaagsan ma noqonayso qalbi ahaan marka tobanka qodob saaxiibayaal waa tobanka qodob baa isleeyahay baraha waxa ay ku keeni kartaa in uu waayo ixtiraamka ardayda saadarteeda waxaan ku rajaynayaa inaad qodobadaas haddii aad naftaada ku dhaqanto inaad markaas guul fiican aad gaari doonto aad baa idin salaamaya muuqaalka si share gareeya insha Allah xalqada ma xalqad kale insha Allah waan idin soo diyaari doonaa haddii la yiraahdo aad baa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh